29 May taariikhdu markay ahayd waxa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxa goor galab ah safar qaatay saacado badan ugu anbabaxay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Adi Cadeeye wafdi uu hogaaminayo Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed suldaanka ay yeelatay beesha fiqashani ee degta gobolka Sool gaar ahaan magaalada Adi Cadeeye waxa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalooyin ka tirsan gobolka Sool ee Somaliland. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Was-salatu was-salamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saaka waxa farxad weyn noo ah runtii in badan aanu qoraxda u taagnayn in badan aanu sugayno oo naawuleynay ilaahay oo nabadgelyo noogu keeno suldaanka inta badan ay dadka iyo deegaanka iyo ummadda islaamku ay ku sugayeen magaalada Adi Cadeeye guud ahaan gobolka Sool oo dhan iyo inta markaa waxa weeyaan ummadda islaamka ay isaga timi bacadka ayaa la tuban yahay dhammaan magaalooyinka ilaa iyo Laascaanood ilaa iyo magaalada Dar es Salaam oo dadku hore ugu yaqaaneen magaalada Guumays laakiin magaceedu cusub uu yahay Dar es Salaam inta dadku saaka ma quraacan ragii iyo dumarkii dhammaan waxay ruuxayaan caleemo qoyan ilaahay waxaan ku mahadinaynaa marka ugu horeysa ilaahay inuu noo keenay waxaan insha Allah tacaala halkan hadal badan ma yaalo waxaa noo yimi suldaankii Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku mahadsan waxaanu insha Allah tacaala marka halka kan noola jooga isimadii iyo cuqaashi iyo waxgaradkii iyo nin garboodkii iyo dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dhammaan bulshada noocyadeedii kala duwanaa waxa maanta farxad weyn noo ah anigoo ku hadlaya dhammaan afka gobolka Sool shacab wariisa kala duwan suldaankayaga oo ah suldaankii deegaanka ana salaadiinta gobolada Sool Sanaag iyo dhammaan Somaliland Soomaaliya iyo geeska Afrika oo dhan inaan ku soo dhaweyno magaalada Laascaanood hadeena aan u taaganahay magaalada Dar es Salaam ee hore Guumays lagu yaqaanay suldaan ku soo dhawow meeshii aad suldaanka u ahayd dadkaagii ku soo dhawow waxaan u malaynayaa maanta waxay noo tahay maalin taariikhi ah in badan baan hawshan ku soo jirnay in badan baan ku sugaynay in badan baa loo diyaar garoobay إن شاء الله سلادينتا أفكا صوماليا كوها هذا شغلنا ويماري سابريتو قلبين يا بري يا وقوي يا كونفور بوالله غير ماريا هذا رنا عيقا وحات هاجن واس عبد الله واس حاشي واس فرع عدل واس حسن واس محمد هي سلادين كلا يو عقال كلا فيصل أبشر جران محمد نواج شوقا وحوي بريتو وحين وصو صعدة سلادين إلى بقول جارية ديار بانونا هاي ولود ديار قروني هذه أنا وحنا كلنا هاي كسر وقول قالوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرادة وقاسيدة ضمان متقانا دقنك يسوي هالكان وسلام يا آدم ومهتسين سودوينتا شعبك رقي ضمر أقوياها دليرو دمانتي وان سلام يا آدم اللي كما العليا سودوينتا وحن رجينا إن شاء الله تعالى سيدا أي حفلة دان أما سودوينتا نيبوضا قيب قاتين دمان اسم الله صومالي يا دمان شعبكو inay inoo noqoto insha Allah ta'ala meel aan isugu nimaadno iyo faraj qayb qaba ilaahayna waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala caafimaad iyo midnimo iyo wanaag baan ka baryaynaa maanta waa maalin farxad weyn inoo ah
haddaynu nahay shacabka gobolka sool waxaynu halkan ku soo dhoweynay suldaanka suldaan mustafe maxamuud awseed haddii aad tihiin shacabka gobolka sool iyo dhammaan shacabweynaha reer somalilan hadday ciidan tahay iyo haddii ay tahay salaadiin aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa suldaan soo dhowow baanu ku leenahay waxaannu kugu soo dhowaynaynaa gurigaagii waxaannu kugu soo dhowaynayaa meeshii aad suldaanka ka ahayd waad aweydoo maanta 11 baa timi magaalada daarasalaam ee guumays loo yaqaan ilaa haddeer way labadii duurnimo ku dhowdahayna dadkaagii aad suldaanka u ahayd baa ku soo dhowaynayaa looma kala hadhin cuqaal waxgarad culimaaudiin dhallinyaro haween intuba waxaa weeye salaadiinba way ku soo dhowaynayaan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaah guud ahaan shacabka reer sool garaadadooda salaadiinta ugaasyada cuqaasha aad iyo aad baad mahadsantihiin runtii waxaana aad ugu faraxsanahay sida aad u midaysantihiin ama aad ugu midaysantihiin soo dhowayntayda iyo mataqaanaa wanaagga iyo khayrka aad ka shaqaynaysaan waxaana ilaahay idinka baryayaa sida aad maanta u midaysantihiin in qulubtiina ilaahay u mideeyo aad baan idinku mahad celinaynaa soo dhowayntan qaaliga ah reer gobolka sool iyo beesha suldaanka iyo suldaanka laftiisa oo ay ahayd runtii inuusan maanta hawshoonin aanu u shaqayno ay ahayd soo dhowayntaa waannu idinka mahad celinaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin allah idin barakeeyo suldaan adiguna soo dhowow golaha dhaqanka ku soo dhowow insha allahu tacala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu 30 bisha May waxaa lagu caleema saaray goobta iyo barxadda ay ka dhacaysay dabaaldega iyo damaashaadka caleema saarka suldaan Mustafa oo ahayd goob caleema saar tii abid ugu wanaagsanayd ee ka dhacday gudaha Somaliland caleema saarkii ugu wanaagsanaa habkii loo diyaariyay madasha quruxda badan oo ay ka soo qayb galeen xukuumadda Somaliland wasiirro tiro badan madax dhaqameedka Somaliland ee ku dhaxleh bulshada Somaliland magaca iyo maamuuskaba iyo marti sharaf tiro badan oo ay ka mid yihiin madax dhaqameedka dawladda Soomaaliya waxa kale oo xafladda suldaan Mustafa door weyn ku lahaa garaad jaamac garaad Ismaaciil waxaan jeclahay marka inaan bilaabno iminka xafladdii waxaan ku soo dhowaynayaa Dr. Axmed jaamac Ismaaciil بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى مهله الله يسوك كاني مضشا لقن هذا بيت وهايو نقول على مسار اليوم سيدنا مصطفى محمود السيد إلهي وحمد كبرنا سبحانه وتعالى إنه كياله سلطانكي دينتا وقرقانة الله كياله سلطانكي ضدك مسلمين تا الله مباركيو إلهي سبحانه وتعالى سببتيسا ومدكو أصلاحيو إلهي وحمد كبرنا كي ضدك أنفع الله كدقو إلهي وحمد كبرنا سبحانه وتعالى حلك الله مقعابي الله فضليو إلهي سبحانه وتعالى وحمد كبرنا ضدك إنه يسخره بيشيسا يبينها صوماليين وماذا حاوي هيبا الله يسخره waxaan rabaa marka insha allahu tacaala inaan ku soo dhoweeyo si uu uga jeediyo gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda tan cabdirasaaq muuse xasan inuu yidhaahdo isaguna kelmadiisa kooban kuna daro maaragtay introduction wax yaroo maaragtay warbixinooda ku saabsan suldaanka iyo taariikhdiisa ku soo dhowow gudoomiye بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرتدى شرفت له كسوق بشي حفلة ويسوي شرطة دمان قيبها بالشدة والسلام يا صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وعن شاء الله إنه مهد عليو دمان صلاة دينتا كسوق بشي حفلة
أما أن رأى بدنا مدينة الصومالية وسوق جنة هربا إمام سلطان جراد أنا وياك بحثنا إيو مدحنا دولة محو هاي جناستها محو هاي وغاشة من علماء هواينك دليرة عيد كاستا وكسر قبل شيء ماشان آد بقى سنتين dadka meesha ka soo qaybay waxa ku jira dad meel walba ka yimid adduunka dhinacyadiisa dalka dibadiisa iyo dibadaba intaba ka yimid dad badan oo muddo badan saakin ay xafladan kulmisay aad iyo aad baan u mahad celinayaa waqtiga ay geliyeen iyo maartay time-kooda ama effort-ka ay geliyeen ay ku yimaadaan meeshan aad iyo aad mahadsantiin mahad kadib waxaan jeclahay inaan yar idin taabto taariikh nololeedka suldaanka maanta aan doornay suldaan Mustafa Maxamuud Awseed سلطان مصطفى محمد أوسيد وحكم شيء مجال عرقابه قبل السنة هل كان يكون بلا برشيد هوسة قرآن كي برشيد بداية لماذا كده من عمري كفرته وهو برشيد ديرات موسيقاتي وذاك الدبديسة مصطفى وانين حاصلة طبعا عمره يوليه هاي ما شاء الله اسمه يربو راب بلابي مصطفى وانين قلع الصداقة وحاجة جمع سيكون حذر شغالين سوين وجناسي نرشي سيتو نوران بسميه وجناسي جناسي سو وكردوية هاي حرب سوا دبي هذا شريدي سلاكي وحكي شغيسا بريق أفريقيا صوماليا خليج كأي أمريكا إنتوا مصطفى وعنين قاعد بحي هرماركا يو وحقامشة دتك يو بالجارين دتك مساكين تاسع نوصل أيو روض السلطان صدقتين مصطفى واحد دورتي بيش ديسمبر سنة كلا صار عفاي وباشا يسوتي من الشركة ناعية عادية وبقولك وبقول عدك وهاي مركان ليه بقولك وبقول معها سيدا لما كلي ترياش أفريقيا كي لا تروح دور شهر على بقولك وبقول بقول لسه ترى بالطبع بقولك بقول أنا بقول لسه حقيقة تضمن الجوب شوي وين شوي مصطفى وحان كوي ورجاليدا سيدا مروشة يدك مساكينته وحنا رجينا أو ضبيتي أمود عيني مصطفى إلهي وفوضايو حلك بلارة وقصد دمانتي وحروانا وبرنا أمود عيني إلهي وبرنا إلهي حلكاس ورجاله سجن ونوضنيكي دكي سيدتي سبع رفعة تايم سوق الرجالية فلامش كلامنا بلا بدونا حكوا رجيني على الرنتر. أنا قلت بين مرة حفلة على مسار كياناتنا إن شاء الله تعالى وأنا كان كيانية اسمه أنا قلت لك ويقولتي اسم كان مدام ويا اسم هذا علماء دبوا لنا يسوي نادين ورشاكس دوتر كيمي ودم كيمي ودم كلا دول سومالي سومالي لا وحنا قلت لك حفلة دتنين إن قطبت كونا إن على مسألة سرادين بدل ويسقطها أو سلطان كله يكشرين أو بقر كله يسبقين وحنا قلت لك لما كان يسبق كان يبقر هذا سومالي ويرودا إن شاء الله تعالى وحيلنا يا مرعيدا ضدك عن مساعدين أهل وطرق وإنه يرعان قولوا يا عمار تعالى شكا أنت يا مساعدين تعالى نوه لجانسكا أما مارك تيتمدوا جانبوا دونتا يكري عن كل الجلين على شكا وغير الجلين إن شاء الله تعالى وحجار المكان كفرنا في ريو ليس كان وطرق وي وإمام محمود إمام يوسف عمر هي سلطان حسن سلطان عبد الرحمن سلطان سعيد عبد السلام أوغاس حسن أوغاس محمد قرات جامع قرات إسماعيل أوغاس أحمد رشيد شعيب سلطان مصطفى محمود أوسيد هي سلطان حسن عبد الله كاري أنت أصفضنا السلطان سلطان كاي راعية وخانتي يا قولي وأكلوا بيش راعية أنا أحمد حاشي عبد الله عبسية عبدي محمد إبراهيم دعالي دكتور آدم عبد الله أو حسن صدقنا نبضون جامع هنديري جامع يوسف إيه عبد الكريم محمد عبسية أنت أصلا واحد راعي سلطانك فضلا مركا حضر بخير أنت أصلا أنا تجمعت الوجه على شكر إن شاء الله تعالى.
وأنا سارة وأنا سارة يا ولد ما يقال يا ولد كسر قاضي يا ولد وش يا ولد يا ولد هو الحكي يا ولد كبعد الوسيلة يا أنا خير بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة شرفت قدرت المر ككلمي دمان انت نغاها ضعف الصومالية ويمي إلى ما تحقق كل دفران والله كل دوان سلطان مصطفى وحمود أوساد وقاشا ملاحظة وزيرة جمهورية سوماليلاند وقامين وزير كمدحتوية وهذا محمود حاشي عبدي علماء دينك دليرada saxaafada haweenkeena sharafta badan dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamka bacdi mahad ilaahay baa iskale alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan intii soo qurxisay madashan سلطان كان يقدرونه سلطان مصطفى محمود أوساد هذه هويتها هي هذه دليلتها هي هذه بوتيتها هي على أنت دمزة كتبي أنت فلان شوكتا كما أنت لنا كورسكم منها عاد بالي كم هالعلم آخر كذا حنسي وحامر بعض العلم يا لما أنت أجيبتي إنك أجيبتي أنا بقول هذا دمان أفضلك ككريمين أنت بدوي أنت فوق هذه سناديهن يا هذه المدحيهن يا هذه المحكرتهن يا هذه الجرتيهن يا هذه الهويهن وحنلاقيها يقوليها يومك هذا فنيا دماتي وحنلاقيها إلى هاي ماشى كتب هذا يكون رقبة إلى هاي النبكين هذا وكوبية هاي وعلى هذا هذا يراها لك سلطان وحلايا سلطان وعاتها سلطان كلها الله لما أنت أبقى الصومال كسلطان كلها وعقولنا سلطان كسروا لما نقلك يبرأ اسمه الصوماليين ما كسروا كسروا وعقولنا كسروا وعقولنا هاي لما والله صور السلام يا عين والله إلى وطن سودان كورياتها ما ترى هكذا يكون عطايا وكلا هرم يدرس كبا يقولون كلام وعقولنا كسروا
intaa haddii aan ka gudbo suldaanka waxaan leeyahay waan kula dardaarmayaa saddexdaa baan kaala dardaarmayaa oo guddoonka waxaa weeye saldanad waxaa weeye kaa qaada saddexdan waan kugula talinaya saddex waan kula dardaarmayaa waxaan ku leeyahay waxaad iska helaysaa gacan buran guddoon jilicsan iyo ganeexo gacantaada waa inay fisanaataa waa in ay waxaa weeye waxna aad waxaa weeye kaantarooshaa guddoon jilicsanna waa guddoonka kaa qaadaya saldanadda ee isna waa iska ilaalinaysaa ganeexana waxaan u malaynayaa inaad waxaa weeye ina hooseyn baa tahayo cadaaladda aad ku dhalatay isagoo waa kaala dardaarmaya saddexna waxaa weeye waan kaala talinaya waxaan kaala talinayaa arkayo anigaale iniyo loo noqon maayo aan wax layma yidhaahdo waxaa weeye ummadda halkaa maraysa ee boqolaaka ku gaadhaysa sultaankooda baa waxaa weeye in wixii soo dhex maraa aadan odhan or arkayo anigaale cidka hadlaysaa ma jirto waxaa weeye waa inaad arrinkaas waxaa weeye aad waxaa weeye ummadda aad dhex dhigta iniyo loo noqon maayo aadan waa inaad waxaa weeye shuuro samaysaa rag kula taliya samaysaa waxaa weeye talada iyaga xaggooda aad u bixiyaa oo wixii ay soo goyaan aad qaadata oo aada odhan arrinkaa anigaa ili oo loo noqon maayo waa amar wey inaad odhan taa waxaa weeye waa kaala dardaarmayo ama wax layma yidhaahdo waxaa weeye iyana waa kaala dardaarmayaayo waxbaa lagu odhanaya waxaa la ceel dambi qabaaliya ninkii kale baa laga waystaa saldanada annaga waxaa weeye sultaan kaaga soo horeeyey ummadda maanta halkaa fadhida ku soo gebisay dunida waxaa laga yaabaa inay qaarkood wax kaa sheegaan waa lagu maagaya waxbaa lagaa sheegaya waxaada lagu qabin baa lagu odhanaya meelaadan tegin baa lagu shaambadaynaya hadal aan oran baa lagu odhanaya inta lagu yimaado haddii doono waxaa lagu samaynaya waxaa weeye dulqaadkeedii baa lagaa doonayaa sabirkeedii baa lagaa doonayaa waxaa weeye inaad dur lahaataa lagaa doonayaa dadkan maanta aynu salaadiinta u nahay ee adiguna aad ku soo birtay dad waxaa weeye yaab la wey marka waxaa weeye in waxaa la yidhi geela baa la yidhaahdo waxaa weeye koora haddaan qaylin oo ka dhaxa qaylin oo ka damba qaylin ragga la socdaa wax kalaba inaad inta way soo jiintaa doonayaa madasha waan inoo furay salaadiinta waa ku soo dhawaynayaa walaha xukuumadda waa ku soo dhawaynayaa wasiirku hogaaminayo cuqaasha waa ku soo dhawaynayaa haweenka iyo gabayaasha waa ku soo dhawaynayaa abwaanada saxaafadda waa ku soo dhawaynayaa fardiya halkan aan ka bixinaya سلطان وين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السماء الصومالية لما أنت هلك السوي مني دولة الصومال أنا مرتضى أمناي وزير كذا بدأت تويدا وهو جامعنا يو لما أروح قرأتك هي عقاشة هي نكبوتك بعض صحافة هواك دماتي محمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام هل كان هذا البن كما فرع اسمه نقدم في كل يا كهل دونا وعربنا لوك الملوك كثيرا منطقة هل كان جورنا نبغى منطقة ومنطقة الشمال لا وعرب دومتان كسلطان كالكان إنتان الصومالية سويت كده لا هو أنت الصومالية وقال شاي كتير وعلنا وأنا إله نسيب بشيء هو راجي وحاولنا بركة سلطان مصطفى سلطان محمد إنه نقضى سلطان كي لبده قريب أصيغ إله نسيب كيس خلقه وندعيه dadkiisa iyo ahalkiisa iyo annaga inta iyo Soomaaliya oo dhan inta Soomaaliya baash macallina marka annaga waxa ka nimid koonfur gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan soo marnay meel la yiraahdo gobolka Karkaar magaalada Ciise Qardo waxaan rabnay inaan boqor Burhaan soo raacno boqor Burhaan boqor Muuse boqor Yuusuf wuxuuna marka laga wada daarsan keena suldaanka inta laga gaarsiiyo waxa wada daarmo soo gaari waayay أولاد جرا أول أنت هلا يقعد الدار المكة بريتاسنا محن جالسين أسوقنا والكنا اسم بدر وكانوا يجرا وهذا كل حريري ودين شيء يدور
وحلنا مركا أنا وقاسا مسعود كالمهار دومتان كسلطان كان كل بدل كان هنا ندعو عينو وأمرت على مسار دمارك إنتنا صعطي إنت كان كل بدل سيدا ونكسرنا اللهم مصنع وكم هاد علينا وأمن لنا هي نبتقلينا يوم هاي كان اسمها أنتنا اللهم موصي سيدا شرفت الإكرامها لأن لا شو دوين وكم هاد علينا عرب برواقها النمدي وإلهي مارتي منظر غير قبيلة هيسي وآذو قرب بضا وعلينا مركة تصنع الآد بلغم هاد علينا إله سبحانه وتعالى نكون باطسن وإن سود دويننا وأنا ما سنتي حضرتك أنت سنكون سوكومية اسم هذا كلام يقول لهم بعد تيجي مشيك دونتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الرئيم مدح نقميت إيو سلاطين تعبوا بقرده عبوا واسيده hadday tahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo walaalahayaga Soomaaliya maanta halka kan inoogu yimid waxaan idinku salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii farxad weyn bay noo tahay oo sharaf weyn bay noo tahay inaanu maanta walaalahayo fiqishini oo suldaanka sidaa loo karaameeyey oo sidaa loo maamuusay عشوماتي أين سبعين إلى رسول أشيبنا وعلى كسوك اعتنا عاصمة الدلكة جمهورية الصومال اللي أنا هرجيسه وعلى كفر حسن وفرحة وبينوتها قلب كوبا وحنود عينينا وأنا دعب الله كعمامتني سلطان مصطفى محمود أو سيد وأنا ما تمدشي سفر الله سودان كيشي أشوف الله ينوبيه سودان تلي الله ينوبيه تلي الله فضودي الله ينوبيه تاسواتا رنتي ذلك ما تاني شغله سومال لنا ديله مركو هرب النبتجلية وسي الله وسيادي ذلك أنا والله ما توفود فرح بدل كتبه سومالينا نبض قب يا خير بالله وببرينا نبض قب يا خير يبش مش بين الله وقبرينا إنه إلهي صلاح كدريو وإله كدريو أيه إلهي وقبرينا حتى أنا تكسر دوالو حفلته ما تهلك عنكم ماموسينه سلطان وحنا كلنا هاي موت سلطان مصطفى ولا جور من تاريخ ليس هو تاريخ شرف بدن وحي كم وقتاكم مناك كل ما تدافعها يسقي من منطقة أوردن هذا إثيوبيا تاعي هذا سوماليلاند تاعي يا هذا صوماليا تاعي إنتي ولا جود يجيبي وحلا صوت الماضي إلو صوت بوري وشرف كسردادا يبيش تنفق السني وأين لنا هاي حرير وين وصاحب تنماء قربيت يعني ومدى لقصو يرتكملها ومدى في صوماليا وقال شاب صومالي دا وايه وحقصو ورمانيا مركو كوباد وحرسنا الدعي مركا لبعض وحرسنا هنبريق سلطان مصطفى محمود وسيدها مركا صدحات باشا في قشني أيان يقرأوا دعينينا وحنا نكررنا باشا في قشني تفتي أيلهايين تفتي وانا وفر لنا إلى على النوم دعيان في قشني الدعاء دي سوال عقبلاي تفتي قشني وانا يدلفتي كده وسعنا إلى النوم تفاع ويعني نوم دعيان halka waxaan la socdo Mujaahid Ibrahim Abdullah Hussein laga weynay oo ay beesha fiqishini loo dhashay ilaa xalay iyo habeen hore iyo habeen saddexaadkiiba farxadda loo qaadanayna wana aftiyaal jecel waan loo qaybsanayay dhammaan baqaranka xukuumadda dawladda Soomaaliland iyo odayaasha inta aan ka tagay xisaabtaba waxaan ku salaamayaa quraanka cadadkiisa salaam boqortooyo anoo ku mutalay salaadiinta Sheekh Isxaaq أما صلاتي الصومالي اللابة وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. أكبر السلام يا ما تهوى الشرف وانتهي وعن سكوني على مسارك سلطان مصطفى وعناها كسر له مدش ضغطك وكسر ويننا وكود عيننا وحكم المغارسة ما تركبتها ولا أشرفت لا يسمى كسر له سلطان مصطفى وعن كلام الدار يا وكود عيننا ما توعبها عندي ودعسة وحتوى مصطفى وعندي وحشرة دردارا فرتا دردارا كان فرا ينوعيها
in ilaahay marka hore horta xilkiisa u fududeeyo isaguna uu ahaado nin xilkaa ka bixi karaa diintiisa iyo xarigga ilaahayna uu qabsado diintiisa iyo maskaxdiisa iyo caqligiisana uu wax ku maamulo marka waxaan u rajaynayaa in ilaahay xilka weyna mustafa loo doortay in ilaahay u fududeeyo dhammaanteen inaynu maanta ugu ducayno mustafa oo ku soo dhaweeyo wuu u baahan yahay gacmaha lagu wada qabto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaanta qaaliga ee ducada xambaarsan aan ku salaamaya dadka halkan madashan isugu yimi ee sharafta badan ay ugu horeeyaan isimada Soomaaliyeed meel walba isaga yimi cuqaasha ganacsatada iyo culimada iyo aqoonyahanada iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo dhammaan kuwa aan xusin dadka sharafka halka isugu yimi waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warlabaad marka taa ka gudbo waa madashani maanta waa madal على مسار وحاولوا ما تأكلوا وقطعي وحاولي ودعوا هي أمبليوي وعنك ورع وأمبليين يا ودعين يا سودان كعصر سودان مصطفى محمود وحلا سبحانه وتعالى ويدين يا إنه الحلك أفضل الله وحشى عرسه إلى إله كأسطره waxaan kala soo dhaweynayaa sidii salaadiinta hore ka sheegeen madaxa dhaqameedka uu ku soo biiray anigoo ku hadlaya suldaanmada gobolka awdal ilaa gebili soo maraya hargeysana suldaanku intii uu qaatay maahee badhweyn qaadanaya سلطانك وان همبلينيا وحلا همبليو سلطانك عصور همبليو والله مقع على المسارينا الله كون بركه عدة كبارتينا إلهي وحي كادوليا هكسي إذا كنت سوى الدعاء أنت كلا حق إسمى مكعنون horta magacan lagu soo qamaamiyo maxaa lagu qabanaya bal taa isweydiino maxaa lagu qabtaa maxaana lagu qabanaya wixii loo dhisay muxuu yahay anigu waxaan u malaynayaa 49 sano iyo soo garaacay magaca 49 sano malayn maayo ahaan iyo waqti ahaan inuu joogo nin halkaa soo gaadhay da'da waa ka wada weynaa sidaan u haysto suldaan cabdillaahi suldaan cali iyaan odhan lahaa laakiin aabbihii suldaan cali baan la shaqeeyey isagu waa iga dambi cidiga qarsoon mooyaane ama aabbaheed baa la soo shaqeeyey ama ka imiga joogaa waa iga wada dambiyey weli ma arag عد مقعالو وحسوي دينس ولي ما أن أرق شرع جيس يقابك الله وضع إياه أدى يقول سنتها حير الباجرة ولي نن وحوي دين يا مارجن ووحل لي يا أبويا ووحل لي يا أبويا هذا الكي وحكو سوق قابلنا يا أما وحيلو سمي مقعا هلا شقي قلنا بالدنيا إيه وحوناجنا أما هالسكدة سلطان أحمد رشيد اللي سلطان في جريرة أنا هاي قرب شوالد عن كلمة مخرسون من الدولة ثلاثة مدني سلطان أحمد رشيد وشعبه سلطان مصطفى محمود رشيد سلطان وولي وين كان من إلهي دورت واي سلطان وكثير ترويه ما يرد له بخير يفوق في الدين وان مؤمن وان اسلام وان اولياء انا مركز كهذا الشخصي هذول يتضبط مشى من المال وعن قيمه
suldaanka karaamadiisa iyo sharaftiisa aan ku imid waxaan ka imid gobolka shabeellaha dhexe aabbahay toddobaad ama kaygii sideedaad weli mayno laakiin waxaa joogo holo aan mas-uul u ahay oo maaragtay faryaam iyo fuudda oo shaqa soo doontay weligii naga yimido haddaan weligaan ma imid suldaan warka keligay ma leehin waa kuu duceehaynay soomaaliya iskugu keen ilaahay aa kula garab galo walaqad karamanaa bini aadama owlida ilaahay aa ka mid tahay intaanu khalqi oo nin qoray loo soo qaadan bistoola loo soo qaadanin la soo dejirinin oo nin walba rilada ilaahay ku yimid suldaanoo weligaa tahay ilaahay aa kula garab galo xafladan sida wanaagsan loo soo agaasimay aad iyo aad u qiimaha badan intaanu muslim iskugu timid oo rag iyo haween male wax meel dheer oogu imaaday iyo wax meel dheer ooga soo kacayba waa arrin aad iyo aad u cajaacib badan wey arrin aad iyo aad u cajaacib badan wey muslim iyo gaal baa yimaadeen suldaan mustafe calaamooyin gaar buu la soo kulmay insha allahu ilaahay waxaan ooga baryaynaa suldaan mustafe suldaankii soomaali isu keenay oo soomaali haddii ilaahay yidhahdo muxuu ahayey nabaddeeda ka qayb qaatay inta qof bini aadan uu karo taasaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu u fudeeyo taasaan ugu ducayn ilaahay u fudeeyo aniga waxaan la socday wafdiga oo haddii ilaahay yidhahdo koonfurta ka yimid intay muqdisho ugu sokayso deegaankaygana waa shabeellaha hoose ilaa kismaayo waxaan gaarsiin doonaa insha allahu inta codka anaga gaaray iyo intii aan muxuu ahayey banaanta anaga gaarto ama telefishinka naga fiirsanaysaba meelahaas aan hadda ka imaada wakiilkooda beesha direed ee koonfur ayaan hadda ka socday wefiga kula socday marka intaas aan wakiilka ka ahay karaamadooda iyo inta haddii yidhaahdo 7 nin oo isbaa ku soo qorneed oo beeshaasa waxay nasiib u waayeen inay halkan ka soo qayb galaan ugaas axmed iyo suldaan saciid iyo rag badan ayagoo infiitari haysto ayay diyaaraddii la kulmi waayeen nasiibkaas ayay yeelan waayeen waxaan nasiib u yeeshay intii timid ayagana anaa ka wakiila codkood anaa ku hadlaya salaantoodana anaa intaas u gudbinaya ayagoo soo gaari waay oo muxuu ahaye haysta haddii la infiitarin haysta waxaan hadalku waa batay dadkuna waa badaya waa soo koobahayaa ilaahay waxaan ka barinayaa suldaan mustafow waa ku soo dhaweynaynaa meesha dhan hadalka ka soo kala dadka rumaana dhimaan weligaan iskumaana arkin ilaa xalay aad noo timaadda maahane xalay baa sukaana koowaheed waxaa ilaahay kaaga baryaynaa insha allahu suldaankii jira suldaankii cimri dheer بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إلهي ومعلي وعكب ما نرى اسمك مصطفى محمود حسين هي باشا وقعت الصلاة ونكتب مناسبة قرح الأبرار نقصوا الدروية حفلة المعان وقرح الأبرار وعن كروه وما نغيا ذلك سؤال الجيلي على مسارك سلطانك انت ما نغى عمرك كبوتو وعن كل دردار ملاها سلطانك الله أرطفوا يهوشيسا واسم قصر ولو باهي أيها الشرقية بيشيسا يريدك واسمها وعوشا الرئيسي فأصلان الله سبحانه وتعالى بالمهدلين لماذا كرد بدن النسيين مركز لبعض وحنا مهدلين سلطان كأي بيشتن وعسمي قوبت المروح بدن خير كبدن دتك بدن خير كبدن وجهين ولا بدن إسبرنا يسوي مهدين إذن كنا واد مهدسنتهين انت كدوا وحنا رئيس سلطان كسوق ولا شبك وسوق إن شاء الله تعالى ونرشقين دونتانا ونرشقين دون هدير هاي الماء سيدا مارت إمام شيخنا وحان كنت لنا إلهي سبحانه وتعالى شريعة سلقاته والشريعة كل قضاء ودمانت شريعة الإسلام بين كل قنوة بيشنا وحان كلت لنا السودان كنا دورتين يا سيدا المخرج قرودين يا أدمارة ومدن فراه بدن سوكنتين وحان لنا هي مغلق
ergadana ha ku badinina wax laga soo ordoodo oo lagu dhibaateeyo ha samaynina idinkana sidaasaan idinkula talinaynaa dadkan halkan isugu yimid sharafta badan waxaan leenahay halkan waa ku kulannay qalbi kulansan oo sharaf macnihiis waa kulansannahay si qurux badan baynu halkan isugu nimid sidaaynu halkan isugu nimid qalbigeenna ma u midaynaa khayrka iyo wanaagga iyo nabadgelyada iyo qabyaalad la'aanta iyo waxaynu ku jirno inaan wax ka bedelo ilaahay subxaana wa tacaala ka baqno oo markaynu si nimaadnana weji qurux badan isku qaabilno markale kala tagnana xabad isla dhacno oo xoolaha kala dhacno oo waddada goyna sidaa ma ku bedelaa inaynu sidaa aynu isugu nimid qalbigeenna u midayno oo beelahaynu ka nimid u midayno oo ilaahay kaga cabsanno oo xabadda carruurteenna iyo gabdhaheenna iyo dadka masaakiinta ka dayno sidaa ma ku midownaa maanta munaasabadda inaan kasoo qayb galo ee lagu calaami saarayo suldaan mustafe عليه السلطان سودو ساحة مدحنا قريتك كسودو مسؤولية على بود ورتمانتا أنا مخراتيك كلها ديمها هي شرفته هي كرامته لما كسر قلبي أي كم موضته اللي نقول عسمي سودان كسودو إلهي وحنا كأجر كيرينا حين كمان هكا مخراتيك كلها إلهي نمقرأ مسؤولية عرس المصاص عليك إلهي كوفو دي مسؤولية عرس للحلقة هذه يدات إلهي وحنا كاقنا تشيرين العدالة إلهي يقول هو النيو وحكست وقتها خسوه ما نكتشر وحالا وقتها لبي نكتشرها ما أنت وقتك أنك حلقة هذه والله نكتي سوطبا وحنا كاقنا تشيرين وحكست وأن تقولنا تدارنيا تدارك وقت سالين تيجو ونسين تيجو كتير والله قبا وحبو قدر مايو لكن لهم ما كوتشريا حالتها هذا بس كمانتي وعن كل درمان يوم كلية بعكس تقولي يقول ويماذا حاجة دي طبعا كتاب كيس كحش كله كذا كاسم بتكون أحسن كتاب سلطان مصطفى محمد سيد يو بيشي سبب وسلامية لما مرت الشرف ترى سيدو كلا يا سلامية رجعية في الدول أنا كلية وحلاء بيشة سلطانك كانتي إن سلطانك لا شقيا سببت وحويا أنتي بدن يخرج بدن باكريسين سومالي دنوان نقانايو هرينا أنك وانوسو عربنايو مدة بدن بانو هيني مصبت وحويا قربانك والربوطو وآد بالوت وأمرك هراء هو قربان كجراء بدن بانتو بالغيا ببريد إن سنة أيوة عن بلي سنة شوقين لنا كلا آدية وحاليا سلطان كالا شقيو قرب حلوان نبرو نشقيست أيوة وحويا ميل بالفريسيي وحويا مانتا شقديسي دي وحو كاغا مارن او سميه هدي كale waxa weeyaan wax badan oo aad helaysan ma jiro suldaanka xilweyn baa saaran runtii hawsha maanta lagu calay masaaray hawl adag weeye allaha ku fududeeyaan leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أهل شرف كبيش السوي من السمدة حكومة يا خيارة كلمة سلام الإسلام كابو سلامي سلام كدب وحن بليين يا بيشي حفلة دكتي وابو الحسي وعند الزواب أبو شيء وسلطان مصطفى نوسو أبو شيء وضدك شرفت بدل وتريد بدل عسوتين بيشا وأمها العليا إلهنا وحن وبريا وحي إني يستين حليد يسوع حلين سلطان مصطفى إلهي سبحانه وتعالى إنه كل قرب قالوا إياك أنت أسأل مدعي لي يا رب ونحن بليين أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا وحا السلام أيام مرت الشرف كلا الدوين نيم والباميشة وكم ضيها يسران كجارنا إياه وحليها مرحبا السلام عليكم ورحمة الله سلام كدب هذا الكوالا دميي
waxaan leenahay suldaanka suldaan soo dhawow hambalyo ayaan ku leenahay alfa mabruuq gacmo furo ku soo dhawow golaha dhaqanka ku soo dhawow waxaan leenahay ciwaankaadu ha noqdo sida isimada iga horeeya ay sheegeen وأمرهم شورى بينهم فإذا عزمت فتوكل على الله شورى هنغو يتشي يادع بيش waxaan leenahay marka ugu horeysa waa ku macsanteen hada soo saadeen suldaan mustafa waxaan leenahay in asgarab taagtaan suldaanka adeecdaan u nusraysaan inta kadib suldaanka suldaan mustafa maxamuud awseed taariikhdiisa lagama sheekeyn waan jeclaa in laga sheekeeyo waxaan leenahay isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto hoggaanka iyo kartida uu ku lahaa deegaanada ku soo jeedo way taqaanaa waxaan leenahay suldaan gacmo furo ku soo dhawow beeshana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما ترتي حضرت لمان ملحق شرفتنا وقت جوكا وقت وزيرة وقامين وزير وزارة المحتوية وضن محمد عاشر عبدي وزيرة كان فرحة بدنا نتركنا دوري توقع صلاحيته واسدة ملحق المدينة حزبية سياسة الدولة دليلة كله وهيلك يبغى أن كتسلم أصحابنا كسلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديد كنت ما أنت وحويات بن ما في أحضان إمام وبركة صل يوم ما راح يجيبون سمعنا بعد بروح فرح سنة إن حفلة قيمة ويسوي ما تسوي ما ده ما راح تعملكي وهيلكي هي ما تحضركي تبقى الله الصومالي ودان إلى يسوي ما له قبل صل خاصة ديان عادي تدي فرحات بيناتها يشرف أركان دود كواركان برواقة ورمركة ينبتقليه قبل ما تكشفين دود كواركان تشرف بيناتها وحملنا كسر هذا قبلك وقبل نبتقليه برواقة كيسنا ينا ورمر يونا كيسنا يدك كيسنا مركان تاك بحر وحمدولي إعلان سلطانك أنا دعيه وأنا أعرف إله وقبرين إنه سلطان دتكي سافعة غرق جمهورية الصومالية الجولان مضاعف الصومال وعلى سرعة يجلس كمان فعة مثل إنه كذا إنسان متعارف مركبات سلطان وحلا وحوي المبادئ قل وحاق دورتي وما تكو إمامي بنشو أقول مقشة دقيسته احترامته كدم بيسا من أحد عميت كود عياق دورتي أو سلطانون غمسا وحبسيها يعني كوجيل المرنبة ومدى ومدى من عسيبها دورتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دبنت وعشرة فيها إن أصول والنهار كان ملح كتمي دولة ديجان كالصومالية إثيوبيا ملح كتمي صوماليا ملح كتمي بلدان أنا هالك الأصول والنهار قبل كالصوم لقال على عدية هي صوماليا وعمر لبعض المشاركية عنيقوا كذا سيقوم في الصور قالهم دقيقة على عدية إن يقدر كسر ويو ملحظة أنت اللي جهك الشرطية ملحظة عملية أنت فوا سودوينت وحيين عن واحد كنيا وعن همبريو يبقى قاعدين هل كان وقدر يا مغشر يا سلطان مصطفى محمود أوسيد وصلنا سلطان كي بيسوف تقصد دورتي إسلام كان سلطان كي هذا حتى يبقى وأنا قال أفتر إلى سلطانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف وين بيناتها إلى نماطها كسوق إنه حفلة قيمها وين لجو بقريو لجونا على مساريو سلطان باشا فقشيني سلطان شيخ مصطفى محمود أوسيد وقرين وحان شعلا إن هالكن وقام هاد عليو كان سلامو دمان مدح دقاميديا دا إيه اسمدا قراددا وقاسيدا بيلداتياشا وقاشا علمادا مغنياشا يمروي كفراها بدن إيه isaga kala yimi deegaanada kala duwan ee bulshooyinka iyo ummadooyinka Soomaaliyeed ay ku kala nool yihiin dibad iyo gudaba sidoo kale iyagana waxa runtii salaamaya mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland
iyo xisbiyada mucaaradka ee iyaguna madasha ku sugan intaa kadib madashani waa madal dhaqan waa madal lagu boqorayo suldaan hadal xaagtinle iyo hadal siyaasadeed maanta halkan ma yaallo waxaa ugu mudan waa hambalyo iyo duco ugu horrayn waxaanu jecel lahay inaannu halkan ka hambalyayno beesha fiqishini dadaalka iyo muxuu ahaayey fagaarahan iyo golahan qiimaha badan ee gobeed ee ay ummadda intan leeg isugu yeedheen oo uu ka muuqdo tabaabusho xoog leh oo uu ka muuqdo tala mug leh oo uu ka muuqdo tala aan laablakac ahayn waa ku hambalyaynaynaa waana ku bogaadinaynaa marlabaadka waxaanu ku hambalyaynaynaa suldaanka cusube ay boqoradeen oo ay u doorteen suldaan sheekh mustafa maxamuud awseed oo u muuqda qof ku habboon waxaa jira dad wax cogta oo la seega ama taladu ka murkacato waxaa ka muuqda anigu aqoon uma lihi suldaan sheekh mustafe aqoon shaksiya uma lihi laakiin intaan hadda ka arkayo ama taariikh nololeedkiisa halka laga warramay ama bulshada halkan isugu timi gole waa saymo mas-uul kasta oo xil loo doorto ama loo boqoro ama loo cogto ama isagu sheegta waxaa laga gartaa qiimihiisa iyo qadarkiisa ummadda ka soo qayb gasha laba jeer baa la calaamadiyaa mar waxa weeye waa marka la boqorayo dadka yimaada noocooda waa laga ilqaadaa marna waa marka uu qofkaasi dhinto aaskiisa iyo janaasadiisa waa laga sahmiyaa dadka yimaada iyo acyaanta timaada waxay muujinaysaa waxaa dhammaanteen aynu soo qiimaynay walaaladeen taladooda iyo tabaabushahooda beesha fiqishini waxaynu soo qiimaynay suldaanka cusub waxay taasi ka markhaati kacaysaa inay doorteen qof ku habboon ee saldanadda beesha waxaan leeyahay hambalyo isagana waxaan kaloo leenahay aan la qabaa dhammaan dadkii mudnaa iyo haldoorkii halkan uga duceeyey waxaanan leenahay isagana ilaahay xilkaa ku asturo beeshii dooratayna ilaahay waxa ay u doorteen iyagana ha ka siiyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعدي حفلتنا قيمها بضن انت كسو غير قشي ويكبده من دولة سومالي لان وسيدا قيمها بضن وصو غير قشي وأمني كيدا كسو غير قشي ووحقبت كيدا كسو غير قشي هي اسمها ميل كستكيم هذا حكا سومرين هذا يدوك سومرين بقى danahoodii soo dayacay hooyooyinka culamoodiinka saxaafadda dhallinyarada ganacsatada kuwii dhammaantiis lama koobi karo ummadda meeshaa maanta fadhisa waxaase idin deeqda kulligii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan meeshaan ka soo jeedinayaa haddii ilaahay yidhaahdo xafladdan waa midii aan ugu soo talagalnay suldaan mustafa محمود أوساد أنا مركز أساسي لا يضد بمودة يقانون وحانا هاي بيش عساق صوت دورتي أنا هاي نصري قصة تلقى وحانا قصة تلقى لنا انتكي المكتر مع أن قصة تلقى هنا وحلقة وانا قصة تلقى هنا سلطان ونقضى قصة تلقى هدي أن ضيعنا سلطان لمدي سنة qarashkii nooga baxay waa khasaarinay intaan ka soo qayb gashay danahoodii soo dayacnayna waa khasaarinay waxaan ka ballan qaadaynaa haddii ilaahay awoodda noo oggolaado inaan garabka ka galno inaan si fiican aan gacanta u qabanno inaan isimadii hore suldaamadii hore oo joogay meesha inaan ka dabageynaan isku dayaynaa oo dhowrka sana waxaan idiin sheegaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waa nala ballanteen waa nala dardaaranteen walaalihii jira waktigu waa iska gaaban yahay duuraan haya
dad badanna waa u dhiman yahay waxaan idiin sheegayaa inaan haddii ilaahay yidhaahdo gurmadkiinnii iyo socodkiinnii faraha badnaa inaanay ka dayicisaan sheega السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي dad badan baa meesha isugu yimi la iswada garan maayo anigu magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan garaad maxamed garaad maxamed waxaan ka wakiilahay garaad salamaan garaadka beesha ugaadyahay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa reer ali caddeeye agaasimka wanaagsan xafladda wanaagsan oo qiimaha iyo qaadaha leh oo lagu booray suldaan mustafe suldaan maxamuud lagu caleemasaray aad iyo aad fadhiga wanaagsan soo dhaweynta wanaagsan ee sanadii reer ali caddeeye aad iyo aad baan uga mahad celinaya suldaankana waxaa leenahay xilka laguu doortay sidii samada hore ay yidhaahdeen ilaahaya kula garab galo ilaahaya kuu fududeeyo بسم الله الرحمن الرحيم انت حفلتنا كسوقين كشيء ويقول الرئيس سلادين الصوماليين ويقول حاجة الدولة وسيهد هذا ويقول حاجة مليانة هوينك هذا صحافة علماء دينك انت كسوقين كشيء ومسلمين حفلتنا وحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا المركز الرئيسي وحال هذا إمام محمد يوسف عليه وحال كلمة محمد وحالة هاي هدي علي هذا بقر كهوية هوية بقر كيسان هاي حفلتنا أنا في سوق عبقري أولا وحال مهد عليها يا عندنا سود ويسي عندنا مرتقى يسي هدي علي أنا متقري يدها ساعتنا عند سورتي ولا لها هنا وهلك جوجو آدي يا رب مهد عليها يا ولي بحني لهاي مركز الصومالية جوجتها ربنا إذا ولا لها هنا وغير جوجو أما صومالي له هدي علي هذا من هدي علي ارتشدي نمت قلنا سوق بالغاد يردك سود بي إلا وقت كان هدى الجوجو دولك أنا وحول قرش فرحت وحنا يمدى سلطان كان دوم كيسة اللي ينادى هو هاي سلطان مصطفى محمود أو سيد وأنها وياه وحنا قدوميهيس هلك واحد يلا يصير أنا كوحنا كده شرفتان كسوت جدنا وحنا ذلنا هاي هدي علي وحنا ودنا وكيل كهويان ودنا هدي علي هو هاي ولا لها المقويو وحنا ودنا وكيل كهويان ودنا ولا لها المقويو مرحبا ذلنا ما قدرت واشرب في هدي علي هذا كينا هاي ركلوا شربي هذا واجوغان أنا هدي علي أنا بقر كهوية وكأن هدي علي هذا حمل سلطان كبار مهد عليها أنت كسوق كشنوا أو عليها محجر وقوشان لها قوش عدان لها أنت كسوق كشوا أنا مهد عليها ودوق عنده وينها هاي يا الدولة هنا قلت شعب سهنا قلت أنت كسوق كشوا مهد عليها وأنا سود وياها أدي الله ينادي وقت كابرين الجوجا وحنا لله دلكينا يدكينا نبض الله كدوا سومالي ذا كلنا هيدو ضيته وادي ضيته تهدي له هذا وحاسد الله وكيلك هويه هلك الجوجا على اسكجر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. وقت واسقاري هي waxaan mahad kadib u soo jeedinayaa dhammaan isimada iyo madax dhaqameedka isaga kala yimid daafaha dhulka Soomaaliya degto oo dhan waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin waxaan kale u mahad celinayaa cuqaasha iyo mataqaanaa dadka dhaqanka oo iyagu ka soo qayb galay xafladda ballaaran waxaan kaloo mahad gaar u celinayaa dowladda Soomaaliland wasiirada ugu horeeya wasiirka madaxtooyada wasiir maxamuud xaashi iyo dhammaan wasiirada kale waxaan uga mahad celinayaa ka qayb qaadashada ka qayb qaateen amniga iyo wanaajinta xafladda waxaan mar kale
dhammaan dadka halka isugu yimid intii ka hadashay uga mahadcelinaya ilaahayna aan ka baryaa inuu iga aqbalo ducadii iyo dardaarankii ii soo jeediyeen waxaan maalintii hore waxaan idhi reerku markii arrinta soo sheegay waxaan ku idhi hal arrin baan ku aqbalayaa inaad arrintaa ku midaysan tihiin daraaddeed ayaan ku aqbalayaa baan ku maantana waxaan kusii aqbalayaa in intaasoo isin iyo intaasoo mataqaanaa dad badan oo khayr qaba intay meesha ka soo qayb galeen ay iigu duceeyeen waa arrin runtii aad loogu farxo oo qiimo badan weeyaan ilaahayna waxaan idinka baryaa idinkana socodkii aad soo gasheen iyo dhulkii dheera aad ka timaadeen iyo mataqaanaa hawshii iyo tacabkii idin gashay muddadaas aad usoo diyaargaroobayseen usoo socoteen inuu ilaahay ajar iyo xasanaad badan idinka siiyo miisaankiina xasanaadka idin saaro runtii sida odayaashuba sheegeen ma noqon doono suldaan qabiil ama suldaan beel keliya ku kooban waxaan ahay suldaan soomaaliyeed mana noqon doono suldaan siyaasadeed insha allah waxaan noqon doonaa suldaan soomaaliyeed waxaana ilaahay ka baryaa inuu waafajiyo cadaaladda maanta waxaan aaminsanahay soomaaliya ama somaliland ama dhul badan ama dadka soomaalida ah iyo ummadaha muslimiinta ah dhammaantoodba in ay halkaas dhigtay ama ay dibdhaca ku riday cadaalad daro waxaan naftayda u dardaarmaya inta kale u dardaarmaya salaadiintii iyo madax dhaqameedkii iga horreeyey madaxda maamulada ama madaxda dowladaha waxaan u dardaarmayaa iyagana inay ku dadaalaan cadaaladda ilaahayna waxaan ka baryaa subxaana watacaala inuu cadaaladda ina waafajiyo oo inaga dhiga caadiliin aakhirkii waxaan leeyahay رب سبحانه وتعالى وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وحن كسر جبينيا مهب iyo mataqaana bogaadin aad u ballaaran oo aan soo jeedinayo dadka gobolka reer Sool garaadadooda ha noqdeen coqaashooda ha noqdeen haweenka ha noqdeen dhalinyarada iyo saxaafadooda ha noqdeen aqoonyahankooda ha noqdeen madaxda gobolka ha noqdeen waxaan dhammaan uga mahadcelinayaa sidii muddada bisha kaamilka ee aan ogahay hawsha iyo tacabka ay mareen dadka gobolkan iyo mandaqadan degani xafladan inay dhacdo oo si fiican u qabsoonto waxaan idiin sheegayaa dadka martida ama meelaha dhaadheer ka yimid dadka gobolku waxay isu qaybeen ma aha beesha aan ka dhashay keliya dadka idin marti qaaday oo maanta meesha idin kusoo dhaweeyey waa dadka gobolka dega weeyaan dadkaasina waxay yaqaaneen sida loo soo dadka sida loo sharfo dadka ay yaqaaneen waxay ogaaneen inaad ummad dad magaca imanayaan waxay ogaaneen in isma imanayaan waxay ogaaneen in madax imanayaan waxay ogaaneen dad sharaf leh u iman doonaan oo ay halkan calaamasaad kaga soo qayb geli doonaan bay ogaayeen sidaas daraaddeed ayay waxay sameeyeen yar iyo weyn garaad iyo mataqaanaa ugaas iyo mataqaanaa madax iyo dumar iyo haween iyo aqoonyahan waxay isku xilqaameen inay xafladani si qurux badan ku qabsoonto waxaan rajaynayaa insha allah inay gobolka iyo mandaqadaba ay sabab ugu noqoto horumar ay kaga horeeyaan gobollo kale ay kaga horeeyaan ilaahay waxaan uga baryayaa dhammaan inta ducooyinka codsatay maadaama aniga ay isimadii iyo salaadiinta igu soo tufeen anna waxaan ku tufayaa inta kale waxaan u ducaynayaa rabbi subxaana watacaala uga baryayaa qof kasta muraadkiisa san oo khayr inuu ilaahay u fudeeyo kii jiran ilaahay caafiyo kii mataqaanaa ay dhib haysto inuu dhibka ilaahay ku qaado qof walba muraadkiisa san adduun iyo aakhiraba inuu ilaahay u fudeeyo intaasaan kusoo gabagabaynayaa jaamac maxamed ismaaciil baa halkan fadhiya wuxuu hayaa kutubkii rubaanta u dhiibay iyo ummadda soomaaliyeedba wuxuu doonayaa inuu kugu wareejiyo suldaan ku soo dhawow adeer jaamac maxamed ismaaciil السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام يا تدوينها دولة هي شبعة أيوه بقولها من والبكيمي المسافة القصوى العظيم وبلاه ما هذا ويقول ما هذا غير وحنا وقع هذا المدن هذا اللي بنا مشروع هدو مرسلة هدو كربا انت يا هراتي يا تري لكن البحر وإذا كان أقبل لي وطانو دعا يسير بعد وإذا كان أقبل لي الله له أقبل وانا وانسين وانا ذي وإذا كان أقبل لي كان هان قرأت سلطان كلاش غير تراح
سودانك والله شغلنا قال وذكاء مركز سكاب هدية وهرنا روسية يا سودانك كوري شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قعنتها كوريج سودانك قعنتها محمد جامع محمد إسماعيل وحوريجي كتب القرآن كها وحوري أننا نقول لك أمدا كلا إسلام قالوا وقرصوا أديكونا كلنا هذه عاد بعد ما سنتين شركنا وين وحريهاي وحباها يسمى هي مدح الدولة. markii uu dhamaaday caleemasaarka Suldaan Mustafa waxa aanu goobta ku weydiinay bulshadii ka soo qayb gashay xafladda caleemasaarka suldaanka dareenka ay ka qabaan sida ay u dhacday xafladii quruxda badnayd ee ka dhacday magaalada Ari Cadeeye. alxamdulillaah rabbil caalamiin hawshan waxaan soo bilownay December 2015 waxa ka horeysay July 2015 maanta oo 30 bisha Julayna way soo gabagabowday waqti dheer iyo juhdi badan baa laga soo maray waxa ilaahay baa mahad iska leh oo noo fududeeyay hawshaas culayska badan inaan ilaahay maaragtay si sharaf leh si wanaagsan si qiimo badan ilaahay noogu qabsoonto waxaan aad u bogaadinayaa dadkii waqtigooda qaaliga soo horay ee ka soo qayb galay xafladan waxaan kaloo sidoo kale tahambaliyo iyo bogaadin u dirayaa dadkii maalkoodii iyo maskaxdoodii iyo muruqoodiiba ku ugu deeqay xafladan qabsoomideeda waxaan muxuu ahaa sidoo kaleeto aan aad ugu ducaynaya uguna bogaadinaya suldaanka beesha doortay Sheekh Mustafa Maxamuud Awseed oo ah nin aqoon-yahana nin culimo ah nin muxuu ahaa ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo arrimaha khayriyada ah hawshan ilaahay waa nagu guuleeyay hawsha guulaysigeeda waxa sababa alla mahadi ilaahay baa mahad iska leh mahadda labaadna waxa iska leh dadweynaha gobolka Sool oo aanu kala harin waxaan uga mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay intii gaar ahaan dadweynaha gobolka Sool uqaashiisa waxgaradkiisa aqoon-yahankiisa iyo maxaan kuu sheegaa waxaan ka helnay muruq iyo maalba waan ka helnay waxaan kuu sheegaa waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan intii kale ka soo qayb qaadatay oo ka timid gobollada kala fogfog ee dalkii Soomaaliya la isku oran jiray iyo dalkii shanaad iyo maxaan kuu sheegaa Djibouti iyo Somaliland intaas oo dhan waa wada mahad celinayaa waxaan ahay ninkii ka soo bilaabay salka suldaanka 63kii xubnood ee doorashada ayaan ka mid ahaa 9kii markii dambena hawsha soo ansixiyay baan ka mid ahaa gudidii dambe gudida qabanqaabada doortayna ka mid baan ahaa ilaa maanta iyo maalintaas hawshii waa garabkaygaanu haynay si fiican bay hawshaasi noogu dhacday maantana munaasabadu aad bay u fiican tahay Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed shinni waa ku kalsoon yahay waana wada doortay hawshaas waa hawl aan khilaaf lahayn culimo iyo codkar iyo waayeel iyo dumar iyo gabdho iyo islaamo mid kastaba hawshaas way ansixiyeen waxaan ku faraxsanahay caleemasaarkan oo aan meel dheer ugu imid oo aad iyo aad aan la soo koobi karin dadka bulshada iyo deegaanka iyo abtiyo adeer siday uga soo qayb galeen ama ay u taageereen caleemasaarkaas waana mahadsantihiin wayna ku mahadsan yihiin dadka dega beelaha Sool Cayn iyo Sanaag intaba ubaxya kala gaahamabahan maanta soo gudbiyay ee haydinkala gartagaca haltooyadeena baadan masha Allah weeye ma hada iskaya masraxa munaasabadahana dunihiday ka muuqataa marwiya mudana hadhamahan baana maamuleen magacadaha rohod masuulontiyo macaan مريحان سادو مجهرتين كما عدير
ومانتا ورسن قالي يدل باهان تابيان مغناي للكاسها محمد باها مستلو هيا منانتور تبليعيا هابانكم وجنا منانتور تبليعيا هابانكم وجنا مسؤولينتي سوهم لله باسمي ذيك فديا وده مير مرا هاقيدين ديلي لهاي وهو شميشة تاهل وحاها هم بليادا إسكالي وريالكي يوصل داهان كيو هو ينكوها عيصدين هويو إيديل دماهان يكوين هقاق haddaad suldaan samaysateen saakaad gaasheen safkaan jeelay saxiixyehe suldaan haddow saxiixyehe sacabkaadna ku saacidan suldaan haddow saxiixyehe sacabkaadna ku saacidan suldaan haddow saxiixyehe waxaa kaloo ku leeyahaa waxaan u imi suldaanka oday dhaqameedka la duubanayo ee la duubtay ee lagu caanashubay baan u imi odayaasha duubaya ee raaskaadaanna ka mid ahay waxaa fara badnaa oo farxad badnaa oo dareen badnaa oo aniga qudhayda aan farxad badnaa kaan imi markaan halka kale waxaa weeye madasha ari caddeeye ee suldaanka suldaan mustafa maxamuud awseed caanashubkiisa ama maxaan ku idhaahdaa duubkiisa lagu qabtay weeye halka kan waxaa isugu yimi makhluuq fara badan oo sharaf leh oo nabadgelyada maxaan ku idhaahdaa u wada xil saaran dowladda somalilan maanta iyo maalintii aanu duubkii u horreeyey aanu doorashadii u horreeyey aanu gallay dowladda somalilan waa uga mahadnaqaynaa sida ay xil isaga saartay amniga iyo waxqabadka iyo taakulaynta iyo weji kastoo ay leedahay maxaan ku idhaahdaa waa uga mahadnaqaynaa waxqabadka weyn ee ay shacabkeeda annagoo shacabkeedii ay muujisay waa uga mahadnaqaynaa waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa walaalaha iyaga reer sool waxa weeye waanu isku ogeyn inaanu wax isla qabanno oo iskaalmayno oo maxaan ku idhaahdaa laf kastoo ay u tahayba waa naga dhexaysaa taakulada iyo waxqabadka suldaanka waxaa la doortay bishii December koodeedii waxaa lagu doortay degmada Arcadee si boqolkiiba boqola markaa kadib waxaa la sameeyey guddi qabanqaabo oo soo diyaarisa habkii loo calaamad saari lahaa suldaanka shaqada waxaan wadnay ilaa December ilaa maanta shalay oo ahayd maalintii suldaanka la calaamad saaray muddo 6 bilood camala hawlo badan baan soo qabanay ama marxalad kala duwan baan soo marnay tii horreysay waxay ahayd bal in horta marka hore aan ururino dhaqaalihii hawsha lagu gelin lahaa kadibna aan dejino istaraatiijigii ama nidaamkii suldaanka loo calaamad saari lahaa intaan ku wada jirnay hawshaas waxaan galnay baaris dheer oo meelo badan baan tagnay dadkii calaamad saarka samayn jiray baan la soo tashanay waxaan tagnay qardho waxaan tagnay mudug gaalkacyo waxaan tagnay meelo kale oo ka mid ah Somaliland si aan uga soo urursano xog fara badan alxamdulilah xog badan baan soo helay dhaqaalana u filan waa helay kadibna waxaan bilownay si aanu hawsha u fulin lahayn waxaanu dhisnay madashaan quruxda badan aad u jeedaan oo muddo dheer laga soo shaqaynayay kadib markii madashii dhammaatay waxaan bilownay inaanu dadkii casuuno oo taariikhda bisha May 3keeda 2016 kadibna xafladii ay saa ku dhacdo shalay bayna dhacday alxamdulilah si fiican bay u dhacday warkaan suuqa keenana waxay ahayd maaragtay xaflad aad u wanaagsan oo gogol fiican aan dhignay marti sharaf badanna ka soo qayb gashay oo dhinac walba salaadiinta isimada Soomaaliyeed waxa ka soo qayb galay ilaa 52 isim oo ka yimid dhulka Soomaalida degto dhan Somaliland Puntland Soomaaliya Zone 5 kilinka shanaad waxa aad uga soo qayb galay iyadana oo mahad weyn u celinayaa xukuumadda Somaliland oo ilaa 6 wasiir ay yimaadeen dawladda waxaan ugu mahadnaqayaa si gaar ah habka ay u sugtay ammaanka waayo meesha intaas dad isugu imaaneen ammaanka in la sugo weeyaan anagana
kumaana filayn beel ahaan inaan ammaanka sugno marka dawladda aad iyo aad ayaan mahadnaqayaa kaalmada ay naga siisay dhinac walba dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca ammaanka labadaba maalintii ay bishu ahayd 31 May waxaa dib u laabtay wafdigii ka socday madax dhaqameedka dawladda Soomaaliya aad bay ula dhaceen xafladda caleemasaarka Suldaan Mustafa sidii quruxda badneed ee ay u dhacday iyo nabadgelyada ka jirta Soomaaliland waxaana markii dambe u mahad celiyay Suldaan Mustafa سلطانكينا cusub waynu duubnay shalayto Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed salaadiinta kale ee ka kala yimi shanta Soomaaliyeed ee maanta halkan fadhiya dhammaantiin iyo guurtidii iyo cuqaashaba iyo ningarboodkii saxaafadda oo idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi hadalku waa iska kooban yahay waynu isu sii ducaynaynaa waana idinka mahad celinaynaa booqashada iyo ka qaybgalka aad ka soo qayb gasheen Suldaanka Mustafa Maxamuud Cabdi Aamin Awseed sida wanaagsan iyo muddada dheer aad waxa weeye aad joogteen iyo meesha ka soo safarteen iyo sida aad noo karaamayseen anigoo ku hadlaya dhammaan shacabka gobolka Sool aad iyo aad baan idinka mahad celinaya haddaad salaadiin tihiin haddaad cuqaal tihiin haddaad guurti tihiin haddii haweenka aan seexanaad tihiin haddaad saxaafadda tihiin haddaad dhalinyarada tihiin aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa anigoo mar labaad ku hadlayaa afka shacabka reer Laascaanood gobolka Sool waxaan leeyahay ilaahay khayr ha idin siiyo sidaa suldaanka u karaamayseen sidaa noo karaamayseen sidaan waxa weeye hawsha ballaaran aad qaybtiina uga qaadateen idinkoo ka kala yimi in allaaliya intii afka Soomaaliga laga hadlo ilaahay waxaan idinka baryayaa idinkoo nabad qaba guriyaha aad ka timaadeen iyo meelaha aad ka timaadeen ilaahay idinku nabad celiyo ilaahay waxaan idinka baryaa meelaha aad joogtaan ilaahay idinku asturo ilaahay waxaan ka baryaa suldaankana ilaahay xilka inuu fududeeyo salaadiinta oo dhan iyo cuqaasha oo dhan ilaahay xilka u fududeeyo والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan salaamaynaa dhammaan marti sharafta halkan inay nagu sagootiyaan ku talagalay ayaga iyo suldaankaba waxaan ka mahad celinaynaa lafsadeennu sagootintiinna keliya maahane soo dhoweyntiinna iyo sida naloo sharfoo naloo karaameeyey oo naloo qiimeeyey waa ka mahad celinaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka mahad celinaynaa sida naloo maamuusay iyo sida naloo soo dhoweeyey iyo sida noogula han weynaayba intaba waa ka mahad celinaynaa ilaah subxaana wa tacaala mahaddaas u sugnaatay wakhti badan ma haysano diyaaraddana waa taagantaha hadda hoos laygugu sheegay waxaan rabnaa marka caaqilkii naga horreeyey kaftanka uu geystay aan rabnaa inaan ka garabno haddii shalay xafladdii ahayd oo sharafka badneed oo qaymaha badneed wax yar xoogaa haddii dadka qaar wax ka dhaliilay inaad naga raalli ahaataanoo dhaqankanaga ama sidaa ama farxaddii iyo sharafkii iyo wanaaggii aan aragnay aanala taraaraxay oo xafladda buraaqada naga keenay waxaan rabaa marka inaad raalli ahaataan waxay ila tahay dadkan waa isla dhashay dadkaanu ninkii gogol dhigay iyo ninkii usoo gurmaday iyo ninkii deegaanka joogay iyo kulliganna dad wada dhashaan nahay waxaan u wada taagnayn wanaaggeeda iyo sharafkeeda inaad raalli ahaada wixii gef oo shalay naga tegey haddii hal shakhsi ka tegey iyo hadduu dad badan ka tegaba isma aana lahayn idinlamaan jeclayn idinlamaan rabno wax gefa intaas inaad ka raalli ahaataan oo maanta wixii xafladdan garaadka wixii ka dambeeya warkeeda inaan la sheegin ayaan ka codsaynaa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتك آد بو علود ويحي runtii xafladana waxay ahayd sagootin iyo mahad celin iyo mataqaana iyo ducay ahayd ducada baan ku soo khatimaynaa hal kelmad baan aan rabaa inaan iraahdo dadku waxay yiraahdaan nin hadduu is sheelana waa la sheegaa hadduu is sheegana waa la sheelaa reer tolkay yimi oo halkaas ka yimi waxaan rabaa inaan u sheego wixii aad wadanka aad ogeydeen oo ka dhacay 20 sano ama 25 sano la soo dhaafay annagu halkan aanu deganayn deegaankan aanu deganayn reerkan hadda idinla haydlayaan la deganayn waa dilla oo waa dhacnaa oo waxbaan yeelaa weli magac iyo wixii koonfur ka dhacayna maalin kaliya nalooma qabsanin maalin kaliyana nalooma raacinin gobonimadaasi waa mid meersi taweeya aad baan uga mahad celinayaa ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa safrayana inuu nabadgeeyo annagana deegaankayga iyo dadka noo wanaajiyo ilaahay waxaan ka baryayaa qulubta si ay Soomaalidu waa qulyahay kaafiruun
aniga intii shalay meesha isugu timi nin aan meel ii gelin ama nin aan mataqaanaa far ku yeelanin ma jirin marka way isku soo noqnoqotaa Soomaalidu ilaahay qulubtooda ha isu duudo ilaahay dadka Soomaalida ha is jeclaysiiyo ilaahay idinka nabad dhulkiina ha idinku geeyo de wixii aad kaga jawaabtaan wixii aad halka ku aragteenna idinka la idinku sugaya intaas ku soo gabanay